iyadoo dunida oo dhan ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo dilkii muwaadin Soomaaliyeed lagu geystay dalka Koonfur Afrika ayaa dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Holland waxa ay sameeyeen isu soo bax kuwaas oo ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedeen dilkaasi waxaana uu ka dhacay magaalada xarunta siyaasadda dalka Holland ee Hague dadkan dibadbaxayay ayaa waxa ay joogeen ilinka hore ee safaaradda waxaana isu soo baxoodu ahaa mid nabadeed oo aan wadan wax rabshado ah hadalada halkaasi laga jeedinaya ayaa u badnaa kuwa ay dadka Soomaaliyeed ugu garnaqsanayeen dawladda Koonfur Afrika iyo shacbigeeda abaalka ay ku lahaayeen waxa loogu abaalguday oo noqdeen shacbigooda lagu xasuuqo waddanka Koonfur Afrika garyaqaan Maxamed Cilmiye Cabdikariin Maxamuud oo labaduba ka tirsan dalada Efsan ee soo qaban qaabisay isu soo baxan maanta ka dhacay magaalada Hague ayaa dhambaal ka turjumaya shacbiga Soomaaliyeed ee waddanka Holland gacanta u kaliyay safiirka Koonfur Afrika ee waddankan u fadhiya kuna aadan dhibka lagu hayo shacbiga Soomaaliyeed Koonfur Afrika shacabka Soomaaliyeed waa ka burweysan tiiraan hayso waxaan anigu leeyahay dadka South Africa jooga ha ka soo noqdeen ha ka soo guureen cid u naxariisanaysa malaha ha ku soo noqdeen Soomaaliya dooni mayno dilka lagu hayo Soomaalida South Africa dooni mayno waan diidnay arrinta waan ka soo horjeednaa marka way naga aqbaleen warbixintii iyo qoraalkii aan u gudbinay waxayna ballan ka qaadeen inay u gudbin doonaan dawladooda South Africa ee Pretoria waxay naga ballan qaadeen in dadkii oo walaalkeen dhibka u geystay South Africa in la dabagalo dadkii oo dhibka u geystay in oo la xukumo oo maxkamad la soo hor istaajiyo waxa kaloo aan fariin u farayaa madaxweynaha iyo dawladdiisa dhammaan dadka mas'uuliyiinta loo dhiibay inay arrintan ka hadlaan ka dhiidhiyaan sida aanu safaaradaha wax ugu dhiibaynay maanta Janiska inta uga faa'iideeyaan waxaan ka soo horjeednaa dawladda South Africa oo dil waxashnimo ugu geysanaysa waddankeeda muwaadiniin Soomaaliyeed waxaan isku soo baxnay maanta dhibaatada lagu hayo dadkeena Soomaaliyeed dhalinyaradeena waxaan dawladda Soomaaliya ugu baaqaynaa inay wax ka qabato arrintaasi mudaaradkan aan ku xiseenno dilka lagu geystay yarka walaalkeena Soomaaliga oo lagu dilay South Africa horona waa ugu sheegnay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka Efsan oo arrintaas soo abaabulay Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Holland